asalaamu calaykum. waxaa jira dunidan qawaaniin ay dalalka dunida ay leeyihiin oo agteenna yaab ka noqonaya, laakiin ay hubaal tahay inuu jiro sababo ka dambeeya oo keenay qawaaniinta. marka aad daawato muuqaalkan waxaa suuragala inaad ka shakiso ama aad istiraahdo malaha wax jiraa ma ahan. waxaad se ogaataa in laga soo aruuriyo ilo lagu kalsoon yahay. muuqaalkeenna maanta waxaan kaga hadlaynaa qawaaniinta ugu yaabka badan dunida. kuuriyada waqooyi. xukuumadda ayaa kuu sheegaysa qaabka atinta aad u jaranayso. kuuriyada waqooyi ayaa ah dowladda ugu badan ee qawaaniinta layaabka ah ay ka jiraan caalamka. tusaale ahaan, cid kale gaari ma yeelan karto qof shaqaale dowladeed amaba ciidanka dowladda u shaqeeya mooyaane. qofna xaq uma lahan inuu tintiisa sida uu doono oo u jarto. waxaa timahaada aad u jaran kartaa sida sharciga ah ee xukuumadda ogoshahay oo qura. qawaaniinta kale ee yaabka ee ka jira dalka kuuriyada waqooyi waxaa ka mid a haddii shakhsi uu dembi galo qoyskiisa oo dhan ayaa u qoolan ciqaabtana la qaybsanaya. waxaa kaloo ka jira waxaa la ogol yahay 3 telefishin oo keliya oo ku hadla codka xukuumadda. riwaayad kasta iyo hees kasta oo aan ammaan dowladeed ku jirinna lama ogola. ciddii soo qabanqaabisa arrinkaa waa lagu maxkamadaynayaa. in internetka la galo waa mamnuuc uu qaanuunku uusan ogolayn. waxaa adeegsan kara oo qura ciidanka iyo qoysaskooda iyo ardayda dhigata jaamacado gooni ah si gaar ahna loo xulay. qalabka kombiyuutarada kuuriyada waqooyi kuma shaqeeyaan nidaamka windowska ee ay ku shaqeeyaan kombiyuutarada aan adeegsanno. waxaase ay ku shaqeeyaan nidaamka ay kuuriyada iyadu ay samaysay oo gaar u ah oo loo yaqaano Red Star Korea. qofka dalxiiska ah ee booqda kuuriyada waqooyi waxaa la raacinayaa shaqaale dowladeed oo tillaabo ula soconaya kol kastaa waxa uu qabanayo. hadduu xitaa uu doonayo inuu sawir selfiya iska qaado waa inuu kala tashadaa qofka la soo raaciyey. muwaadinka u dhashay kuuriyada waqooyi telefoon dibadda ah kuma hadli karo isagoon ogolaasho aanan ka haysan xukuumadda dalkiisa. haddii kale waxa uu la kulmi karaa dil sida qabsatay dadka qaar oo naftooda ku waaya arrintan. ugu dambayntii, muwaadinka u dhashay kuuriyada waqooyi looma ogola inuu u dhoofo dibadda. haddii lagu qabto isaga oo dhuumasho ku socda waa la xirayaa, islamarkaana waxa uu wajahayaa xukun dil ah. dowladda labaad, China. aan eegno qaanuunada iyo sharciyada kaa yaabin doona ee dalka China ka jira. lama ogola in ruuxda qofka dhintay ee isku soo matasho nuuc kale geerida kadib haddaanu ka haysan ogolaansho xukuumadda. waxaa jira dunida diimo qaba in ruuxda qofku ay isu soo matali karto waxyaabo kale geerida kadib, sida qofka in uu mas noqon karo, noloshana ay ku soo noqonayso iyadoo sifo kale oo aan aadana ahayn wadata. waa fikrad la yaab leh oo dad kale agtooda aan laga aqbalaynin, laakiin ay aaminsan yihiin dadka qaar. waxaase taa ka la yaab badan in xukuumadda China ee mowqif ka istaagtay arrinkaa. waxay u diiday sannadkii 2007 suufiyada Taibetanka inay wax isu soo ekaysiyaan haddii ay ogolaansho ay ka haystaan xukuumadda mooyaane. in nolosha qawaaniin laga soo saaraa waa caadi, laakiinse waxaa ka yaab badan in geerida kadib qawaaniin laga sameeyo. baarinimada waalidku waa waajib. wiilka dhallinyarada ah oo qoyskooda gooni ugu nool waxa uu ku qasban yahay inuu qoyskiisa si joogto ah u soo booqdo, kalana qayb galo munaasabadaha diiniga ah iyo kuwa kale ee waalidka lagu raaligelinayo. markana aan eegna Australia iyo qawaaniinta ka jira. nadaafadda oo xilliyada qaar aan laga ogoleen magaalada Melbourne ee caasimadda Australia. magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan dunida. laakiin haddii aad ku fikirto inaad mar un booqato, haddii aad nin tahay, ha isku dayin inaad haweenay isu ekaysiiso amaba gurigaada aad ku nadiifiso masaaxadda korontada ku shaqaysa inta u dhaxaysa 10 habeennimo ilaa 1 saac ee subaxnimo. maalmaha caadiga ah, xilliyada fasaxana 10 subaxnimo, rag iyo dumarba haddii aad falalkaas sare aad ku kacdo waxaad ogaataa inaad ku dhacayso faldambiyad lagugu maxkamadayn karo. yacni muhiimaddu waxa ay tahay inaadan nadaafad aadan samayn karin wixii ka dambeeya habeenkii 10 ama 4 saac ilaa 1 saac ee subaxnimo. sidoo kalena maalmaha caadiga iyo xilliyada fasaxa ah, rag iyo dumarba lama ogola 4 saac subaxnimo wixii ka dambeeya in nadaafadda ay sameeyaan oo faldambiyad ayay la kulmayaan. markana aan eegno Maraykanka iyo sharciyada ka jira. dameerka looma ogolayn inuu seexdo meelaha qaar. gobolka Oklahoma ee dalka Maraykanka waxaa mamnuuc ka ah dadka dameerada leh inay ku seexiyaan barkadaha qubayska ee biyahana lagu siiyo.
arrinkan ayaa salka ku haya dhacda sanadkii 1924 ka dhacda gobolkaasi kadib markii mid ka mid a dadka dameerada ka ganacsada uu uga tagay dameerkiisii barkadda mayrashada ama qabayska ama biyaha lagu siiyo dameerka. waxaa dhacay fatahaado oo daadad ay ku soo rogmeen gobolkaasi. kadib dameerkii oo hurda ayaa waxaa qaaday biyihii daadadka isagoo aan dareemayn. kadib dameerkii halkaa ku qarriqmay ama ku dhintay. arrintaa ayaa keentay in dad badan iyo kuwa xayawaanada u ololeeya ay abaabulaan warqad afti dadweyne ah oo dameerka looga mamnuucayo in la seexiyo barkadda yar ee biyaha lagu siiyo amaba loogu qubeeyo. qaanuunka ayaana lagu dhaqangeliyey si dameerka loo ilaaliyo. markanna Scotland waxaa ka mamnuuca musqulaha dadweynaha. waxaa jira qaanuun ka dhaqangalay dowladda Scotland oo mamnuucaya in musqulo dadweyne laga dhiso waddooyinka. muwaadinka Scotland haddii uu musqul u baahdo waxa uu xaq u leeyahay in uu gargaraaco guriga ugu dhow ee musqul uu ka heli karayo. qofka guriga iska leh uma diidi kara taas. haddii kale waxa uu wici karaa booliska, dacwadna waa uu ka soo gudbin karaa. ugu dambaynna Brazil, xaaskaaga oo aad iskaga celin karta muddo 10 cisho gudahood. ilaa 2002 dalka Brazil waxaa ka jira sharci ogolaanaya inuu ninka xaaskiisa iska celiyo oo qoyskeeda uu dib ugu celiyo marka uu arko inaanay gabar ahayn. laakiin waxaa waajib ah in muddo 10 cisho ah aanay ka badan muddada celinta uu reerkeeda uu gabadhaasi uu ku celinayo. waxaa jira sharciyo kala duwan oo dadka ka yaabinaya kuwaas oo aad ku aragteen dowladaha Kooriyada Waqooyi, China, Maraykanka, Australia, Scotland iyo Brazil. haddaba midkee ayaa kuugu yaabadnaa ama qawaaniintee ayaa kuugu yaabadnaa oo ka jiray dhammaan dalalka aynu ka soo hadalnay? qaybta hoose noogu reeb aragtidaada adiga oo nala wadaagaya waxa aad isleedahay way kaga duwan yihiin qawaaniinta kale ee dalalka caalamka ka jira. inta badan annagu waxaynu nahay dad muslim ah oo qawaaniinta qaarkii kama dhaqangeli karaan gudaha dalkeenna. haddana waxaan ognahay in mararka qaarkii ay jiraan qawaaniin kaa yaabin karaya ee aad adiga aragto. fadlan qaybta hoose iigu reeb aragtidaada. haddii ay tahay markii kugu horraysay aad soo booqatay channelkayga, fadlan subscribe saar oo la wadaag asxaabtaada. gambaleelka fura si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee hela muuqaalada kala duwan ee halkan aan ku soo bandhigo. waan kaga mahadcelinayaa daawashada, aragti dhiibashada iyo la socoshada muuqaalada kala duwan ee aan halkan ku soo bandhigo. waa anigoo Maxamed Ciise ah, mar kale iyo muuqaal kale. mahadsanid.